korontoha ayaa Yuusuf Xasan wariyahay BBC magaalada Muqdisho oo hadda Muqdisho ku sugan isagoo uu ku urgalayna sidii ay warbaahintu uga hadashay geerida marxuumka weydiiyay inuu soo balhada faahfaahiyo sida ay warbaahinta Muqdisho uga faalootay geerida marxuum Cigaal waxaanu Yuusuf yiri Cabdiraxmaan qalabka warbaahinta ee magaalada Muqdisho ee isugu jira idaacadaha FM-ka iyo joornaaladuba si aad ay uga faaloodeen laga bilaabo maalintii oo dhintay Maxamed Ibraahim Allahu naxariistay ilaa maanta idaacaduhu qaabab kala gedisan ayay uga faaloodeen ha ahaato idaacadda maaragtay Horn Africa SN banaadir idaacadda codka dawladda qaab ayay uga faalootay sidoo kale wargeysyadu waxay soo bandhigeen taariikh nololeedkiisii iyo shakhsiyadiisii iyo waxa uu ahaa idaacadaha iyo wargeysyadu waa dhammaantood waxay soo xiganayeen dadku xilli ahaa oo yaqaanay ayay maaragtay keeneen laakiin maaragtay arrinta ugu caansaneed waxa ay ahayd idaacadda Horn Africa ayaa xalay barnaamijkeeda caanka ee yiraahdo wadaag waxa ay uga hadashay oo ku soo qaadatay Maxamed Ibraahim Cigaal iyo waxa uu ahaa siyaasadiisii noloshiisii dabeecadiisii nuuci uu ahaa waxayna maaragtay doodaasi ka qayb geliday oo markii uu ahaa General Jaamac Maxamed Khalid iyo Abukate Gabiyow oo ahaa wasiirkii dastuurka ee dawladda lixdanka labadaas doodooda si cajiib leh ayay uga hadleen dabadeedna dad weynaha ayaa iyaguna intii koogii sheegay jaamac yar oo kale haddii aan soo qaato qaabkii uu sheegay waxa uu yiri anigu waxaan ahay nin aan siyaasadda isku khilaafsanahay marka ma doonayo yiri inaan ka hadlo wixii aan isku haynay ama inaan wax dhaliila ka sheego laakiin maadaama uu dhintay buu yiri oo una had daafici karin marka wuxuu cadeeyay in uu ahaa oo qiray nin siyaasi ah oo maaragtay wax kasta u hura oo aqoon fiican u leh oo maaragtay midnimadana dadka raggii u ololeeyay oo ahaa hantidiisiina u horay xisbigii oo asaasay gobolada waqooyi iyo xornimada gaarsiiyay iyo markii dambe si aad ay uga faloodo runtii wuxuu kaloo jaamac Maxamed Qaali sheegay in uu ahaa Cigaal ragga hadda siyaasadda waqooyiga ku howlan ninka midnimada Soomaaliya ugu dhow oo ragga kalena hadda bedeli doona ama ku loolamaya xilligan soo socda in ay noqon doonaan niman ka fog midnimada oo si aad xag jir u ah ragga midnimada doonayana hadda inay israxayaan ma u malaynaya ayuu yiri Abukate Gabiyow isagu waxa uu sheegay inuu ahaa nin siyaasi ah oo aad u yaqaan oo faras baxday ah oo xagga siyaasadda marka Soomaalida la fiiriyo wuxuu yiri waxyaabaha hoose ee maamulka nin ku saqarjaama ama farageliye ma ahayn dadka aqoonta u leh oo maaragtay maamulka ay u deyn jiray arrimaha waaweyn oo culus oo siyaasadda ayuu ka hadli jiray taas ayuuna uga gadisnaa siyaasiyiinta kale Yuusuf haddii aan markaa ku weydiiyo bal ka waran dadkii iyagu telefoonada u soo dirayay muskidoodaasi ay socotay sidee bay jawiga u ahaa jawiga wuxuu ahaa dadka intooda badan waxay aad runtii u ammaanayeen Cigaal iyo nabadda oo Somaliland u soo hoyay sida ay sheegeen iyo kaalintii oo midnimada Soomaaliya ka qaatay arrintaasi aad uga hadlayeen ala kulli xal dadweynuhu waxay ahaayeen dad aad runtii nabadda Somaliland ka walwalsan oo doonaya inay Cigaal kadib xasilooni ay maaragtay helaan Yuusuf waxaad kaloo nooga warantaa wargeysyadu iyagu sidee bay wax uga qoreen wargeysyadu waxa weeye iyaguna faallooyin ay ka qoreen مثلا kala gadisan iyo wixii ahaa iyo waxay ku amaanayaan dhammaantoodba midnimadii iyo nabadda oo Somaliland ka dhaliyay wargeyska la yiraahdo codka xorriyadda ayaa isagu maqaal dheer waxa uu ka qoray Cigaal iyo ayaha Somaliland geeridii Cigaal kadib marka waxa uu ka faalloonayaa wargeyskaas maqaalkiisa gobonimadii gobolada waqooyi kaalintii uu ka soo qaatay iyo midnimadii dabadeed sidii uu Cigaal ahaa iyo dadka Somaliland ba sidii ayagu ahaayeen kuwii gobonimadana ugu horeeyay midnimadana ugu horeeyay dabadeedna dagaaladii sokeeye iyo Cigaal meeshii uu ka taagnaa waxa uu sheegaya marka in xaaladda Somaliland Cigaal kadib ay rajeeyaan in ay nabadoodu meesha ka sii wadaan laakiin waxay leeyihiin waxaan shaki ku jirin oo leeyahay
maqaalkani in hadda inta lagu jiro tacsiida aan loolan siyaasadeed dhacaynin laakiin muddo kadib loolan siyaasada oo dhici doona aan la saadaali karin nuuca uu noqon doono cid kastoo noqda iyo cid kasta kusoo baxda loolankaasna ay adag tahay shakhsiyaddii cigaal oo kale in la helo saas ayuu leeyahay wargeyskaasi maalka dheer oo qoray wuxuuna soo bandhigay shakhsiyaadka laga disan uu leeyahay in ay wanaagsan tahay dadka reer Somaliland nabadooda inay wax kasta ka horumariyaan oo ah arrimihii cigaal uu ku guuleystay oo ay ka dhaxleen maamulkiisii Yusuf Xasan wariyaha shirkan uu gudoominayay ra'iisul wasaaraha